الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دماوان سلام يا ومدرسة سوماليلاند أنا كل سلام يا دبالدقة أما فانتسيها سديد يتبن كمي عاوة وحن شوقنا ويست لندن سوماليلاند كوميونيتي أنغو أو هالكا همبليو إير رين وغسو درينا dadka yaga adduunyada meel kasta ka joogaan marka ugu horeysa waxaan soo dhaweynayaa soo noqodka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ilaahay nabad ku soo celiyay waxaan leenahay soo dhawow madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad marka labaad waxaan salaan iyo bogaadin u dirayaa dhammaan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland poliiska دراويشته يعني محل عيدنكا أسلوبته أصحابته قلياشة يدمان شعب وينها حريرته الرئيس سوماليلاند عيد وناكسن كو عيد النبض يبراره سديد يتبن كمي waxaanu halkan isugu nimi inaanu ka shaacino hadii aanu nahay community-ga West London Somaliland community inaanu leenahay xaflad 18 May waa 18 anagu markaa waxaanu goosanay in maalinta 18 ahayn 20 ahayn 18 on dot inaanu xaflada qabanno oo aanu ku qabanno Lady Margaret Saffron waxaanu soo casuumeynaa qof kasta haweenaada ama ha yaraado oo Somalilandra si gaar ah waxaanu soo casuumeynaa oo leenahay ku soo dhawow xafladda West London Somaliland safaarada Somaliland TV-ga qaranka Somaliland iyo dhammaan communities-ka Somaliland iyo organizations-ka raaca ee reer Somaliland iyo shacbiga degan London ee Somalilandriska waxaan leenahay aan wada ciidno caafimaadsan aan soo dhaweyno aan fantasiya samayno aynu ku raaxaysana maalinta qiimaha leh ee 18 May waxaan sugnaaba waa idinkoo nagala soo qayb gala dabaaldega 18 May oo ay idin soo ururiyeen iskuna soo dubarideen community-ga West London Somaliland السلام عليكم madaxweynaha waxaan ka rajaynayaa in maanta wixii weynaa sugaynay oo ah اعترافكي الدنيا هريرهيدا oo dhan inuu noo xambaarsan yahay maalinta 18 qodbadiisana uu noogu sheegi doono insha Allah kariim halkan waxa jooga dhammaan community-gayagii Somaliland oo u badan ahna West London Somaliland community bulshaweyntii waad ogtihiin meel kasta waxa daadihiya hormoodna ka ah hablaha togan hablaha heeganka ah ee reer Somaliland ee dalkooga iyo dadkoodaba hormoodka u ah caawa halkan waxaan uga yeedhayaa walaashay Foosiya Cismaan Cawaale oo iyaduna kelmadeeda dabaaldegayna oran doonta السلام عليكم horta waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka dadweynaha dumarka quruxda badan ee isugu yimi community-ga Somaliland ee West London oo community-ga kaliya aynu leenahay marka waxaan idin leeyahay aad iyo aad ba wanaagsantiin mar walbana aad xusuusanaysaan calankiina iyo qarankiina magaciisana haysataan waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha qaranka Cabdiraxmaan ilaahay nabad qab ku soo celiyay ee qaranka ku soo celiyay ee cadawgii qaylinayay nabad qab ciidiisi ku soo celiyay ayaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa waxa kale oo mahadnaq u dirayaa oo mar walba aniga igu qaaliya ciidanka qaranka ee jiidaha jooga ee dhaxanta jooga ee naftooda iyo life-kooda u daadiheeyay qaranka ee dibadda taagan ilaahay waxaan ka rajaynayaa mar walba kuwii guuleystay gacan sareeya in ilaahay idin ka dhigo galbeed iyo bariba booliska ah iyaguna madaalaha ardayda yaryar ee quruxda badan ee calanka ku jeen qaaran ee ku hoos dhalatay
macaankiisa mooye aan qadhaadhkiisa arag habeenna dayacmin habeenna xanuun arag nabadda ku jiifa na waxaan ilaahay ka baryayaa in ilaahay iyaga iyo kuway dhalaynba in ilaahay gaadhsiiyo qarankoodii oo maanta ictiraaf yimi oo maanta dawlad noqday oo cadowgii iyo wixii afka Soomaaliga ku hadlayay cadowga inagu noqdayba in ilaahay gacantii ka sarreysay naga dhigay ilaahay waxaan ka baryaynaa inagu maanta dhammaan meel kasta oo aynu joogno dalka iyo dibaddaba waa inaynu muujinaa habeenka aynu leenahay waxa weeyaan 18 May maanta waxaan habbi ku ahay xafladda 18 May la qabanayo ta dalkii laga marayo iyo tan ay community-gu maanta sameeyeen yacni waa maskaxaadu wanaagsan dad maskaxdoodu aad u caafimaad qabto oo qaranka iyo ciidda jecel ayaa isla eegay waxayna ku qurux badan tahay in maalinta 18 aynu muujino meel walba dal iyo dibadba markaas saasaan ugu rajaynayaa qof walba qalbiga calanka ka jeclow qof walba qaranka jeclow ciidana iyo calanka iyo qarankuna ha sareeyo bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad wada salaamayaa dhammaan Somaliland meelay joogtaba dabad iyo gudo sida hablaha iga horeeyay sheegeen waxaan aad habbi ugu ahay madaxweynaheena iyo nabad qaba oo caafimaad qaba in ilaahay inoo soo celiyo ma sha Allah tabaarakallah isaga iyo madaxdeena iyo dadkeena dhammaan waxaan rajaynaa ilaahay caafimaad wada siiyo Allah inoo ilaaliyo Allah inoo xafido wadanka iyo dadkaba waxaan leeyahay dadkeena suga wax oo degdeg uma wanaagsana maxaan ku dhaw inoo sheegi doonaa madaxweynuhu insha Allah wuxuu inoogu maqnaaye aynu sugno insha Allah bismillaahi kariim maxaan ku dhaw wax khayr qabo inoo sheegi wax khayr qaba inoo soo socda aan faraxno insha Allah halkan ku faraxno wadankeena ku faraxno Allah in nabad geliyo meelan joognaba assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إما كانوا وحنو يا إن شاء الله تعالى إفراح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدى رير سوماليلاند oo dhan meel kasta ay joogaan gudo iyo dibadba waan salaamaya marka ugu horeysa salaanta islaamka sorry in the way man hadlin oo maanta si baan u baqbaqayaa waxay tahay mooyaane haddana farxadda 18 May ayaa aad iigu qiimo iyo qaayo badan waxaan ku faraxsanahay in community-ga West London Somaliland community oo mar walba u taagan yahay qarannimada Somaliland kuna weyn tahay qarannimada Somaliland waxaan reer Somaliland oo dhan ka codsan lahaa meel kasta ay joogaan inay aad u support gareeyaan community-ga West London Somaliland community isagoo u taagan mar walba dhibaato walba u maray dadka taariikhda ayaa way isku ogyihiin community-gani muddo dheer buu taagnaa dad baana aad ugu dadaala no matter what qarannimadu waa important qalbiga iyo niyadda wuxuu yiri Somaliland dhiiga iyo dhuuxa ayay raacday weligeedna kama go'ayso ya marka qarannimadu aad bay noogu weyn tahay ilaahay hayna gargaaro mar walbana waxa qofku markuu daacad yahay ilaahay baa support gareeya mar walba ilaahay bayna garab taagan Somaliland ha noolaato ha jirto ha joogto mar walba tii cadowgeedu ka naxo ilaahay ha ka yeelo nacabkeeduna uu ku farxo ilaahay ka yeelo guul Somaliland I'm happy as long as I'm there for Somaliland I'm happy thank you ka rogo laba saar haddana weydkan waxaan joognaa ilaa imika West London Somaliland community waa meesha aanu ka soo dirayno baaqayaga 18 May in all Somalilanders in London iyo hareeraheeda inay noo casiman yihiin kulligood oo nala xafladeeyaan oo ka qayb qaataan 18 May iyo West London Somaliland community haddana waxaan u yeedhayaa qof aan idinku ahayn qariib waa Eid Hassan Muuse in Somaliland exactly بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إن هبلها قرقرحت بدن يوديك قرقرحت بدن هلقا فدي دمانتين وان السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن waxaynu halkan iskugu nimidnay inaynu shaacino 18 May
xafladda aynu qabanayno ay communityga West London Somaliland community qabanayso maalinta Isniinta bisha 18 May tahay maalinta qaran xuskeedu de waxa la xusaa isla maalinta qaranka marka sida caadada ahayd waligeedba West London Somaliland community maalinta amba Isniina ku dhacdo amba Arbacaha ku dhacdo amba Khamiis amba Jimce amba Sabti amba Axad isla maalinta in la xuso ayaa muhiima sida daraadeed waan ku hambalyeynaya oo ku bogaadinaya gudidu inay go'aansatay inay maalinta 18 May ee Isniinta ah ay xafladii sanad guuraha 35aad ee ka soo wareegtay markii aynu la soo noqonnay calankeena amba madax banaanideeni iyo qaranimadeeni aynu tuurnay 1 July 1960 dadka badana maalin dhawitaan ka hadlayay waxay yiraahdaan Independence Day dadka xafladaha qaban qaabinaya laakiin 18 May Somaliland Independence Day maaha waa Somaliland Independence Restoration Day waa maalinta aynu dib ula soo noqonnay dib baynu u soo celinay marka waxaynu leenahay dib u soo celinta aynu dib u soo celinay waynu ku tamarinay oo waynu ku maxay haday horumarnay oo nabad baynu ku helnay qarannimadu wax yaani loo dhigaa ma jiro qabiil ma gaadhayo wax kalena ma gaadhayo adduunka ilaahay wax ma yaani la tijaabiyey oo lagu tamaniyey lagu tamariyey qarannimo jirta oo ilaa nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam qarannimo ayay ahayd wuxuu nationhood halkaa bay ka bilaamatay marka kadib conceptka nation state ka reer galbeedku inoo keenayna xadadka leh ee maanta adduunku ku dhaqmana waa lagu tamariyeeyo wadan walba dantiisa gaarka ah ayuu adduunyada ka dhex wataa dad isku yaani qoomiyada dantu qoomiyad ma ka dhaxayso dantu marka qaarkood diin xitaa muslimiinta dunida maanta muslimiin badan baa degan laakiin sacuudigu haddana de wakaa maanta inala dagaalamaya falastiiniinta aynu arkaynaa carabta walaalahooda ee adduunka ugu qaniisan ilaa maanta xal bay arrinkooda u laayiin oo waa kuwa dee ka loodin kari laa inay Israa'iil ka dhaadhiciyaan war in yaroo dhulkooda uun balugooya marka maanta nation state-ku qarannimadu intii isku xada ee isku administration ayuunbaa isku dana oo ilaahay isbaday marka haddaynu reer Somaliland nahay qarannimadeena aynu adkaysanno mar labaadka sida adag inagu soo gashay si dhayalayaan ku sii daynin qabiilku waxay naga daciifo abtirsiinta qabiilka waxaynu ku marmarsiyoonaa mar walba waa abtirsiinuuno ilaahayba wuxuu yidhi wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila laakiin dee waxbuu raaciyey ilaahiyo wuxuu yidhi dee kiina ya laakiin kiina ugu maxay hadayin taqwada badan ayaa agtayda ka yani aan jecelay anigu marka waa inaynu taa ogaano oo qarannimadeena Somalilandnimadeena maxay haday ku dhaadano insha Allah marka 18 May ciyaar maaha aynu sida ogsoonaano maalinta Isniintana aynu si buuxda uga soo wada qayb galno waxaynu leenahay markaa 18 May sumadii qaranimiyo hubaal waa sawrici qaranka Somaliland. Assalamu alaykum. salaanta islaamka anigu wada salaamaya meel kasto joogtiinba especially waxaan salaan qiimo iyo qaaylo u dirayaa shacbiga reer Somaliland meel kasto ay joogaanba khaas ahaan dadka ku nool Somaliland dhexdiisa dhalinyarta naga oohisay ayagoo caruurtii laabta isa saartay ay heesayaan waaweyn iyo rag bay ku heesayaan anagu maanta waxaan u joognaa waxaan dumara iyo inka naga maqanba hibaaqyar gabi aamino isqarinaysa waa gudida garbaha Somaliland ku duusho West London Somaliland community inanta kaltuun iyo inanta aamina iyo aamina meeshka iyo hodan Somaliland West London Somaliland community iyo hibaaqba kama maaranto waa dumarka xoog ugu shaqeeya ee waqtigooda galiya lacag la'aan ilmahooga ka doonayaan iskuulka shaqadooda ay galayaan ku soo noqda had iyo jeer ka shaqeeya marka hablahan waxay ka codsanayaan haddaad shacbiga Somaliland ee ku dhaqantiin United Kingdom West London Somaliland community waa community kaliya marka wadankii laga yimaado magaca Somaliland sidata
ee weliba ku shaqaysa free aan cidna wax weydiisan ee ayaku isfinance garaya timekoogana geliya marka haddaad somalilander aad tahay oy somalilandnimadu iyo 18 May runteeda ay tahay ka soo qaybgal waxay ka dhacaysaa ayaanta 18 May waxayna ka dhacaysaa Safran waana 6 galabnimo waana ayaan shaqo timeka soo ilaasha gacmo furanna kooda yimaada Safran Lady Margaret marka ciid weyn noo heesay anna waan gabyayaa ha laakiin af Soomaali kuma gabyo ha waxaan ku gabayay dhageyso oo caabi Somaliland way ka qood weyn tahay dal wayna ka sareysaa dal waxa in Somaliland way ka weyn tahay dal wayna ka sareysaa dal waxay uga sareysaa dal dadka inagu xaggan maynu fadhineen farxadna ku waynu fadhineen haddayna rag iyo dumar iyo caruur iyo hooyo ku soo luga beelin marka waxaan ku bilaabay Somaliland is more than a country it's a promise to our ancestor whisper through our time carry in every heartbeat it's not just a land beneath our earth but it's a spirit who live within us it's a flame that does not fade Somaliland is eternal marka inta kale mar kale aan sheegi doonaa really anoo Somaliland daawanaya oo dhalinyartii ooyeysay ay dhalinyar baan daawanayay dagaalkii oo caruurteeda ka yaryarba imika oo le ilmihii qofkan agtoo oo dhan baa lagu dilay marka waan ni salaamay hablahan oo dhanna waxay leeyihiin happy 18 May happy 18 May dhamaantiin anna waxaan oranayaa intii kale oo dhan waa la yidhi laakiin waxaan ka codsanayaa dadweynaha reer Somaliland ee ku nool London oo surroundingkeeda Somaliland community is the only Somaliland thing standing there takaliya ta idin shaqeysa wax walba idin qabato weeyaan waxaan idin ka codsanayaa inaad membershipkiisa ka soo qayb gashiin xoojisiin communitygiina ku xidhnaatiin ka soo wada qayb gashiin dhamaantiin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is West London, Somaliland. aadi baan salaamayaa madaxweynaha salaamayaa madaxka ku-xigeenka dadka Somaliland shacabka iyo dal iyo dulba aad baan salaamayaa anako halkan maanta waxaan dabaaldegaynaa oo farxad noo tahay in 18 May aan aad u xusno hadii ilaahay yiraahdo xafladeedana waa ka soo qayb galeysaan dadka halkan joogana aad baan ugu mahad celinayaa so happy 18 May Somaliland and forever and ever. That's it.